daawadayaal ku soo dhawaada warbixin aanu ka diyaarinay allaha u naxariistay sheekhii daaciga ahaa ee reer Falastiin sheekh maxamuud cabdiladiif oo ku magac dheera Abu Khadaab ayaa xalay oo jimco ahayd ku geeriyooday dalkaasi Kuwait. sheekha ayay rabbi u timid isaga oo wacyi ka jeedinaya xafladda meher ahayd kana hadlayay fadliga guurka iyo xuquuqda lamaanaha isku leeyihiin. waxa kale oo uu ka hadlayay sheekhu geeridii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo halkii uu ku geeriyooday nabigu sallallahu alayhi wasallam oo ahayd laabta xaaskiisa. intaa kadib sheekhu si lama filaan ah u yidhi laa ilaaha illa allah, kadibna sidaa ayuu ku geeriyooday. لا إله إلا الله. امسك يا أخي، امسك لا إله إلا الله. sheekh maxamuud cabdiladiif wuxuu ka mid ahaa falastiiniyiinta ku nool dalka Kuwait. wuxuu ka soo jeedaa tuulada Balcad ee Tulkaram, Falastiin. sheekhu wuxuu ka mid ahaa aas-aasayaashii guddiga sekada al Cusmaan ee Kuwait oo la aas-aasay 47 sano ka hor. nebigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi qofka hadalkiisa kan ugu dambeeya noqdo laa ilaaha illa allah, jannada ayuu galay. sheekhana allaha u naxariistay bishaaradaas ayaanu u rajaynaynaa. xamiidow maxamed, KBN TV.